كان maanta waa cashirkii tobanaad waxaan ku baranaynaa verb to be for your jobs. Talking about your job inaad shaqadaada ka sheekayso ayaan ku baranaynaa. Waxaan isticmaali doonaa verb to be ayaan isticmaalaynaa. Waxa aad tahay marka aad ka sheegaysid waxaad isticmaalaysaa verb to be. Tusaale ahaan oo kale, I am a student, I am a teacher. Waxaan ahay macallin, waxaan ahay arday. ma waxaad sugaysaa fursaddii shaqo inay ku imaado balse lagu dhaho waan ka xunnahay luqadda ingiliishka kuma hadli kartid mise hadda ayaad go'aan gaaraysa oo aad iska xalinaysaa problemka luqadda ingiliishka fahaysa waxaan fursad kuu siinaynaa inaad koorsooyinkan ingiliishka ayagoo dhammaystiran aad tijaabiso hadday ku anfacaan lacagta bisha ayaad iska soo dirin haddaba linkiga hoos ama kor ama profile ka muuqdo iska soo diiwaan geli marka shaqadaada markaa sheegayso waxaa leedahay waxaan ahay engineer, waxaan ahay kalkaaliso, waxaan ahay dhakhtar iyo wixii la mid ah. Marka waxaad isticmaalaysaa verb to be ayaa isticmaalaysaa. Alright, tusaalaha ugu horeeya marka aan ugu gudubno marka waxaa leedahay tusaale ahaan oo kale haddii aad police officer tahay oo kale waxaad dhihi kartaa I am a police officer. I am a police officer. Haddii aad contracted form ka dhigaysidna markaad hadlaysid oo kale waxaad dhihi kartaa I'm a police officer. I'm a police officer. Waxaan ahay police officer ayaana. Waxaan kaloo ayadana si hordhac u baranoonaa marka aad magaca nounka markuu nounku uu ka bilaabanayo consonant ka bilaabanayo xaraf shibane oo ka bilaabanayo sida xaraf shibane markuu ka bilaabanayo sida p oo kale waxaa laga hormarinayaa a ayaa laga hormarinayaa markuu singular yahay markuu hal noun yahay hal magac yahay a ayaad ka hormarinaysaa. haddii uu magacu ka bilaabanayo consonant vowel oo ka bilaabanayo sida e oo kale vowel iyo consonant oo soo baranayaan filayaa waxaan kusoo baranay alphabetka ayaan kusoo baranay. Alright, e haddii uu ka bilaabanayo ama vowel oo ka bilaabanayo waxaad ka hormarinaysaa an ayaa ka hormarinaysaa. Marka waxaa leedahay he is an engineer. Asaga waa engineer. I am a police officer. Aniga waxaan ahay police officer. I am a police officer. Aniga waxaan ahay police officer. Alright, haddii uusan ahaynin hal qof uusan ahaynin dhowr qofood ay yihiin plural ay yihiin oo kale waxba kama hormarinaysa. Markaas waxaa leedahay they are scientists. Ayaga waa saynis yahano. They are scientists. Ayagu waa saynis yahano. Marka waan ku celinayaa haddii uu magaca consonant ka bilaabanayo oo sida p oo kale q oo kale w oo kale waxaad raacinaysaa a ayaa raacinaysaa markuu hal qof yahay. marka hal qof yahay oo asagana ka bilaabanayo vowel oo ka bilaabanayo sida e oo kale waxaad raacinaysaa an ayaa raacinaysaa. haddii hal qof uusan ahayn dhowr qofood ay yihiin waxna ma raacinaysid. marka meeshaan waxaan ku arkaynaa workplaces meelaha laga shaqeeyo. Workplaces waa meelaha laga shaqeeyo. dadka qaar waxay ka shaqeeyaan farm beeraha ayay ka shaqeeyaan, qaarna xafiis ayay ka shaqeeyaan office weeyaan, qaarna waxay ka shaqeeyaan theaterka ayay ka shaqeeyaan, school waa school weeyaan, laboratory waa lab weeyaan ama dadka saynis yahanada meesha ay ka shaqeeyaan oo cilmi baarista lagu sameeyo. Restaurant waa maqaayad, construction site waa meesha dhismaha ka socdo, hospital waa hospitalka. marka shaqooyinkan la qabanayo qaarna waxa weeyaan daaqiliga weeyaan, qaarna gudaha ayaa laga shaqeeyaa, qaarna banaankooda ayaa laga shaqeeyaa. tusaalahan dadka beerta ka shaqeeya oo kale beertu waa meel banaan bay ku taalaa, banaanka ayaa laga shaqeeyaa. hospitalka oo kale ama xafiiska oo kale xafiiska gudaha iyo guryaha gudaha ayaa loo soo galaa. hospitalka oo kale iskuulka oo kale gudaha ayaa loo galaa. marka inside weeyaan ayagana. marka waxaa jirto inside and outside. Scientists work inside. Saynis yahanadu gudaha ayay ka shaqeeyaan. saynis yahanku banaanka kuma shaqeeyo, laabkiisa gudaha ayuu ka shaqeeyaa. laakiin beeraleyda oo kale meel banaan ayay ka shaqeeyaa, beertooda banaanka ayay ku taalaa, banaanka ayay ka shaqeeyaan. marka a farmer works outside. beeraleyduna banaanka ayuu ka shaqeeyaa. marka waxaa jirto Englishku wuxuu leeyahay af Soomaaligu ma lahan badana, laakiin Englishku wuxuu leeyahay waxa preposition wax la dhaho ayuu leeyahay. tusaale ahaan oo kale in work inside waxa weeyaan in waa gudaha weeyaan, onna waa dusha weeyaan. laakiin af Soomaali markii laga dhigo qaabdar ayay noqonaysaa. laakiin marka Englishka ku isticmaalayso oo kale waxaa leedahay I work in a hospital. haddii shaqadaada meel gudaha loo galayo ay tahay oo kale waxaa leedahay I work in a hospital. hospital ayaa ka shaqeeya. I work in a school ayaa ka shaqeeya. I work in a shopping mall ayaa ka shaqeeya. haddii uu yahay meel la galayo ay tahay. haddii meel la galayo ay ahayn sida dhul tusaalahaan oo kale beerta oo kale waa meel banaan weeyaan, waa dhul banaan. marka waxaa leedahay I work on a farm. beer ayaan ka shaqeeyaa. af Soomaali haddaa u turjuntid waxay leedahay beer ayaan ka dul shaqeeyaa ayay noqonaysaa. laakiin af Soomaali ahaan kuma saxno inaad sidaas dhahdo. waxa laga dul shaqeynayo ma jirto. laakiin waxaad dhihi kartaa
I work on a farm, beer ayaan ka shaqeeyaa. Construction site, dadka dhismaha ka shaqeeya oo kale ayagana waxay dhihi karaan I work on a construction site. Waxaan ka shaqeeyaa dhismaha ayaan ka shaqeeyaa. tusaale ahaan oo kale shaqadaadu haddii ay tahay tusaale ahaan oo kale dhakhtar haddii aad tahay oo kale dhakhtarku muxuu qabtaa shaqadiisu wax weeyaan dadka ayuu daaweeyaa Soomaan. He works with people, dadka ayuu la shaqeeyaa. haddii aad caruurta caawiso kale ama caruurta aad u adeegto kale you work with kids ama with children ayaa leedahay. haddii aad xayawaanka u adeegto kale waxaa leedahay I work with animals, xayawaanka ayaan la shaqeeyaa macnaheedu waxa weeyaan xayawaanka wada shaqeyn naga dhexaysa ulama jeedo, waxa ula jeedaa xayawaanka ayaan u adeegaa ama u khidmeeyaa ama wax u qabtaa. tusaale ahaan oo kale markaad daaweynayso sidoo kale haddii aad caruurta oo kale la shaqeyso oo kale ama caruurta daaweyso oo kale I work with children ayaa leedahay. nurses oo kale kalkaaliyaasha oo kale maxay sameeyaan they work with patients, dadka xanuunsanayo ay bukaanka ay u adeegaan. food oo kale dhirta oo kale haddii aad dhirta ka shaqeyso oo kale I work with plants ayaa dhihi kartaa I work with food. chefka oo kale I work with food ayaa leedahay. marka waxaan idinka iloobay buuggaan oo dhan cashir walbo wuxuu leeyahay listening ayuu leeyahay. si aad u ogaato listeningka samiicad yar ayaa ku sawiran. haddii samiicad yar ay ku sawiran tahay taas macnaheedu waxa weeyaan waa cashirkaasi maqal ayaa la socdo. marka mar walba numberka ayaa fiirinaysaa. numberka markaa fiirisid kadibna applicationka codka ayaad furanaysaa. waa taqaanaan oo malaynaya sida loo soo download garaysto waa soo dejisateen. kadibna numberkaas ayay ku qoraysaa. kadibna sheeko walba meeshaas ku qoran haddii ayba samiicad ku sawiran tahay waad dhegeysan karaysaa. marka cashirka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa insha allahu diyaar garooba casharada xigo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.